saddexda bal haddaad shaqaysatid $700 isbuucii waa samayn kartaa. nin oo 50 sano ku jiro oo truck fuulo iyo wiil oo dhalinyaro ah oo 24 sano ku jiro isku khalmaayaan. One of the reasons ani haddana iskuulkan aan marka imaad iskuul aan qada aan waxay xayalay family aan wax bartay aan ka soo jeedaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Salaamtii walaalaheena ku xiran channelkeena Maryam iyo Maxamed podcastgeena ku soo dhawaada episode-kii afaraad shanaada marayna. Afaraad marayna. Yes. Okay. Number 4. Okay, let's go. We're Maanta doing waxaan ka hadlaynaa hadduu ilaa yiraahdo warqadan waa warqad dad badan ay soo codsadeen. Dabcan wax badan aan ka hadlay sidii aan yeel ku galay iyo maaragtay muxuu ahaa waxyaalihii ii suurtageliyeen gradekii aan ka hadlay iyo classes aan soo qaadanayay waxyaalo badan aan ka hadlay dad badan oo adinka in ka midana waxay xiiseynayeen inaan usoo bandhigno ama inaan u sheegno warqadii aan u qoray yeel oo maaragtay jaamacadda yeel aan qoray oo liigu ogolaaday in aan ku galo jaamacaddaasi maanta ka hadlaynaa waa kuwaana warqadihii waa dhammaantood waa haynaa waa ka hadli doona hadduu ilaa yiraahdo Maryam iyo warqadda luqad English aan ku qoray marka horeeta waxaan ku fikirayay inaan maaragtay turjubaan caadi like Soomaali bis aan ku aqriyo laakiin haddana waxaa Maryam waxay igu dhalisay waxay tiri dadka badankooda nagu xiran naga dad badankood luqadda Ingiriiska ku hadla waaye dhalinyaro badan oo wadankaani ku koreen dabcan nagu xiran ognahay marka waxay dhaheen ayagana sidii oo la socdaan dadka hadda apply garaysanayo oo macnihii oo dhalinyarada kaleetana aan aniga ugu sharxo ama ay u fahmaan so marka waxaan ka hadlaynaa haddadan hadduu ilaa yiraahdo warqaddii sidaan u qoray wixii aan ka fikirayay markaan qorayay Maryam aan noo akhrinayso anna af Soomaaliga nagu turjumay hadduu ilaa yiraahdo waa kuwaana warqadii ayagoo waa soo print gareey marka hore Maryam inta ka akhrisay rabtay laakiin hadda waxay dhahday iPad-kan ka akhrinayna yes I have it right here. yes okay So intii akhriska ku aan bilaabo horta I have su'aalayaal aan rabaa aan ku weydiiyo. okay hey waxaan rabaa inaan ogaado like what's the difference like maxay kala duwan yihiin ardayaalka oo Yale ama Harvard Ivy League dhigayaan from ardayda oo other universities dhigayaan oo Ivy League ahaan like maxay kala duwan yihiin dadka badankooda waxay u malaynayaan in ay caqliga kala duwan yihiin dad qaarkooda IQ-gooda sarreeya dad qaarkooda IQ sarreeya caqli kuma xirnaa lahay actually su-aashan su-aal muhiim ah waaye aan dad badanna isweydiiyaan baaritaana la sameeyey mar walbeeto markaan ka hadlayna anaga wax caadi badankeed aniga wax baaritaan inaan ka hadlaan jeclahay wixii liska dhigi karaa liska dhigi karaa laakiin badankeed wax haddaad ogtahay inaad fact haystaan u baahan somaa oo wax oo la qoray oo la baaray oo la xaqiijiyey inay jiraan haddii kaleet waxaan noqonaynaa hebelaa sii sheegay sheekadii taleefonka camal muxuu ahaa marka waxaa la fiiriyey maxay ku kala duwan yihiin actually waxaan ka dhegaystay khudba jimco ah aan su-aashan jawaabtan aan ka soo helay khudba jimco adna waaba ogeede maya khudba jimco ah yaa maalin aan tahay khudba jimco ah imaamkii yaa wuxuu ka hadlayay sababta ay ilmaha dadka qaarkood jaamacadahaasi u galeen iyo muxuu ahaa tusaale usoo qaadanaya asaga ahaan iyo sababta ma aragtay waxay kala duwan yihiin Ivy League iyo non-Ivy League iyo dadka ma aragtay Ivy League waxaa la yidhahdaa jaamacadda dadka badankood haddaadan aqoonin Ivy League waxaa la yidhahdaa Harvard University Yale Columbia University of Stanford what one midkii oo kaleeto meequ ahaa oo Donald Trump ka soo baxay Donald Trump waxaas ka soo baxay not Wisconsin man Columbia no Columbia waxaa ka soo baxay walaalkay ka soo baxay cousinkayga Brown University no gabadhiisa midii aaday Donald Trump magaalo waaye I don't know wait what yeah but Ivy League Ivy League how many maxaa waaye Ivy League sheeg Ivy League sideed jaamacad yaalo 7 miya 8 waaye limi halahan ka saay waxa waaye Harvard Yale Stanford Columbia meeqa marwaya afar afar Brown okay
I know you know this one. Pennsylvania State. Yes, that's exactly mid kasoo baxay Donald Trump iyo gabadhiisa xitaa. Pennsylvania State University is an Ivy League. Ivy Yeah. League wide. So kaas ka hadleen. Anyway, Okay. so waxay kala duwan yihiin lahay caqli ma ahan waxyaalo kaleeta ma ahan dadaal kaleeta oo gooni ay sameeyaan ma lahan halka waxa ay uga duwan yihiin ciyaalka dadka waxbarta dadka jaamacadooyinkaasi galeen iyo dadka aan jaamacadooyinkaasi aan galin waxay tahay intaan sheegin horta waxaa la sameeyay baarista la sameeyay baaritaan ku laabtay Of course. so kulligood la isku keenay waxaa la isku keenay kuwaas ciyaalkaas meeshaas dhigtaan dhalinyarada meesha dhigtaan jaamacadaas u aadeen iyo waxaa la keenay dadkan kaleeto oo caadiga jaamacadda maaragtay University of Minnesota aadeen ama wax kaleeto kasitaan ma ahan balaakiin waa jaamacado weyn University of Michigan hadda Michigan aniga magaaladeena University of Michigan la one of the best public school waay oo Mareykan ku taalo public schoolka waxaa waaye qof walba aadi karo public university jiraan iyo private kuwa anaga aan ka hadlayna Yale kuwaas private waaye so marka imaamka ku sharxo ha imaamka la keen ha imaamka dhahay imaamka wallahi alxadiim xaqiiq waaye waa la isku keenay dhalinyaradii waa la isku keenay waxaa la okay waxaana linka rabaa homework la siiyey waxaana linka rabaa the only kulligood gradeekooda uu isku dhex jiray mid A u keenay mid B u keenay mid C u keenay kuwa qaarkood oo waxaa jireen oo A keeneen oo jaamacadooyinkan caadi galaan kuwa qaarkood oo Ivy League keeneen oo A heleen waa jireen waa isku dhex qasanayeen gradeka waa lagu kala bixin waaye hal waxaa lagu kala bixiyey halkaas wuxuu ahaa waqtiga ay samid gareeyeen assignment ma la siino waxaa la dhahay bilmatan camal maanta jimca waaye jimca mubaarak dhammaantiina muxuu ahaa waxaa la yidhaahday berita oo sabti ay tahay yaa linka rabaa la dhahay warqadan dhalinyaradii kuwii oo jaamacadooyinka kala aadeen waxay samid gareeyeen oo warqadda ay gudbiyeen oo macalinkii professorka saxa ay u dhiibeen jimco iyo isniin jimco iyo khamiis due dateka markii u dhowdahay khamiis loo siiyay waxaad aad maanta la sii maanta no jimco may sabt due datega gadaala un laabanayna aan ka wadaa okay gadaala un laabanayna sabtiga beri camal yaa due dateka ahaa okay marra la soo siiyey dhowr isbuuc ka hore la soo siiyey okay fahmi waxay sameeyeen waxayeen muxuu ahaa dhalinyadan kaleeto waxay dhiibeen jimcadii iyo khamiistii geeyeen waxay sugeen ilaa markii ugu dambeysay camal markii ugu dambeysay maalin markii dhiman tahay kala orodkan buuxi kan sameeye kuwii yaal iyo meelahaas ka waxaysmeenna isbuuc ka hor kasii hor dhameen dadkii maalinkii la siiyey muddo kama soo wareegeen isla markii waa soo celiyeen waxoodii soo sameeyeen waa soo celiyeen marka waxay ku kala duwanayaan waxaa waaye organizing waa kuwan waa diyaarsan yihiin wax walba schedule-kooda meel ugu qoran yes waxba dib uma dhigaan haddana waxaan yeelaan waxaanay sameynayeen haddana wax akhrisayaala waxaan aqrinaa beri uma dib dhigayaan laakiin dadka badankooda waxay sameeyaan dib u dhigayaan oo beriyaan sameynaa leeyihiin kadib waxaa ku imaanaysaa beriyaa lagaa rabaa beriyaa imaanaysa berita markii lagaa raba waayo adna wala xaq maybe something came up for you know so you have to miss or misgaran ama xanuunsan kartaa ama wax kala dhici karo ama muxuu ahaa ii sheeg electrica ka baxay internet ma haysatid waxaa dhici karaa maalinka ugu dambeysa markay tahay ama waa ordaysaaba kan fiir inta fiir marka adiga dhan waxaa kugu jiro degdega kugu jiro markii degdeg kugu jirtana wax si fiican wax ma samayn kartid markaas waxba fiican thoughtkaada ma gaadar gareyn kartid iskuma keeni kartid so orada ku jirtaa adigoo dhan markaas laakiin markii aad muddo haysatid oo aad ka fikiraysid oo ka waxaysid oo maarkino 2 beri 3 beri kaleeto mar haddaa bilaad by the time imaanaysa waxaad dhan ay isku dhammaadeen aad samid garaynaysaa so the only difference wallahi sheekha wuxuu yidhaahday imaamkii wuxuu yidhaahday the only difference oo waxay tahay muxuu ahaa u dhexeeya waxay tahay waqtigii ay samid gareeyeen kuwii ayagoo 2 isbuuc ka hor samid gareeyeen qaarkooda B heleen
kuwii hadda isniintii samid gareeyeen qaarkood ay heleen oo jimcada samid gareeyeen ankooda ay khamiis samid gareeyeen kuwa dambeeta waa kii macnaheedu waxaa isku dhex jireen grade markii la dhaho laakiin kuwan kaleeta waxay dadka oga waxaysiin waxay tahay they are organized Yep. organize sameeyeen waa organizing waxay hadda bilmathal camal teleefankeyga haddadaan waxaan ku dawanay by the way teleefankeena waa inaga haddaadan ogeyn Yeah. quality video khatar waa dhisi maasha allah baa sitii teleefon ku dubnaa anyway muxuu ahaa That tells you markii wax ratid inaad bilaawdid yes you don't have to go waxweyn inaad tagtid maahayn wixii haasatida isticmaal kartaa yes so unaka hadda teleefonkayna haasanaasa teleefonkayna isticmaal hina yes that's a tip Yeah. number 1 good telephone camera is khatar waaye so Yeah. we use telephone anyway Yeah. so telefonkii hadda aragtaan waxaa ku qoran 3 bilood oon soo socono dhan wixii aan samayn lahayn like all I have my schedulekeyga dhan shaqada hadday tahay iskuulka hadduu yahay maryam shaqada hadday tahay waa share garaysanaa Yeah. waa buuxsanaya adan waxay soo samaysanaysaa 2 bilood 3 bilood then share idhaysaa google docsiga google calendar anna waa share garayn so I can see her things ana waxay arki kartaa laftarkeeda so waa ognahay maxaa kan imaan doona maxaa imaan doona cunug gormuu isbitaal leeyahay cabdiqaadir goormee warqadan duuday tahay goormee kana xareynina goormee caafimaadkan laga rabaa kan goormee laga rabaa you know waxa dhan waa qoran yihiin Yeah. so that's organizing Yeah. Yep. that's share the calendar between adiga iyo qofki oo your spouse it's very important in isla sync ma laha markii lisku gudbihay share or you No, can sing no, yeah synchronize share it is- yeah, synchronize, yeah. yeah So markaas that way I'll have Mohammed on my calendar Mohammed's all his tasks and to-do list meelaas uu qoran yahay yeah and usigana how he has so it. she He hadhow does. siisay oh maxamed beri shaqa maaleeda beri dambe shaqa maaleeda beri kale shaqa maaleeda waaba ognahayba Yeah. waqtigan shaqa leena soo iska jilaysana so the only difference that was the difference That's amazing. That's interesting wallahi. yeah waxaan rabaa hadin inaan ogaado Well, you know what? Why don't we just sort of go? Let me read حاشتانني أخرنا. okay yeah The By the what way- is it? What is it? Personal essay Allah. What do they call this? personal yeah Personal essay. yeah, Yeah. yeah. So Oh, personal personal statement personal statement. Yes, Yeah. that's what I was looking for. waxaan rabaa inaan weydiiyo waxaan rabaa asxaabay haddii aadan channelka subscribe hadaadan ahayn subscribe saar hadduu ilaa yidhaahdo And like. gambaleelka furo like saar qof kaloo ka faa'iidaysan kara haddaad taqaanin u share garay badankeed annaga ma dhahno like iyo subscribe saara ma dhahno xaqiiqdii Yeah. وهلمانا. yeah وهلمانا. well وهذا صح صح. oh yeah صح hadda kadib no waxaa sameyn mataqaanaa Huh. inta inaan ku xirto waa like subscribe warqad inaan ku qorto waa note in saarto like and subscribe Yeah, you need every to video marka la reminder. bilaabayo 2 saac 3 saac inaan hadaan la algaa laakiin we forget to subscribe Yeah, we get carried away with شكله. yeah شكله كم. Yeah. So محمد حنشتي سني آخرها. أنا في إنجليزي أنكو آخرها مركا سي وربطان paragraph مركا آخريه أتما ترجماني مثلا أسيق أنا آخرها. a and then- paragraph akhri oo tijabana yes Okay. kadibna waa inaan soo gelina waa isku dayana hadduu yidhahda haddii aadan si fiican u arki weysidna please linkiga hoos wax noogu soo sheeg haddaa u baahanta we'll send it kusoo email garaynana hadduu yidhahda ama facebookana laga soo xiriiro waa kuu soo diraynaa haddaa u Well, letter baahanta كما أدريسة. letterk yeah Is that a good idea? Because plagiarism لعكرة. sharing camal ah Yeah, plagiarism. Yeah. may sample ay u qaadan karaan Sample. yeah I don't know maybe well, I'll think about it inshallah Yeah. لكن ما ولا فاهمة قفك واسكون حرين كل سما ورقد لقرة ولا فاهمة سما Yeah. yeah Okay, so essay personal statement why but letter أهان عملا أسوق قرية هي yes the format. So حسدها to the faculty committee of the psychiatric mental health nurse. I am writing to express my sincere interest in pursuing the Doctor of Nurse Practitioner in mental health program at Yale School of Nursing. okay let me say that inta hadii kale dhumaa dhawdaas ku cajma warqadani waxay ku socotaa facultyga Faculty committee of psychiatric dadka mental committeega oo dadka xukumayaan oo maaragtay meesha haystaan ayay ku socotaa warqadani waxaan warqadani u qorayaa macnii qalbigii ka soo go'day waxa macnii
rabitaanka aan u rabo in aan horumariyo ama rabitaankayga waxaa waaye rabitaankayga doctorka of nursing practice oo dadka xanuunsan mental healthiga qaar qaybtaasi yaan danaynayaa marka rabitaankaygan ka hadlaya warqadan u qoraya hadhowdalina maxamed dadka badankood qaarkoodna horta waxyar ma istaajiyaa dad badankood af soomaali nooga hadla maryam af soomaali hal sana ayada jirta kasoo tagtay muxuu ahaa maryam iyadoo hal sana ka dhexgal maryam iyadoo hal sana jirtay iyadoo yaray af soomaaliya kasoo tagtay so intay soomaaliga hadda ay ku hadlaysa waa intii anaga naga barbaratay waaye adinka qoritaankiina ka baratay iyo inta aniga iga baratay waaye badankeed so marka waa dadaaleysaa qoftaana waxayna aniga idiin soo haray haddaan ka taga soomaaliya waa aqaanaa dabcan laakiin ilaahay amarkiisa sababta waxay ta mataqaanaa aniga ama mar marba meelaan u shift garanaysa waa dhowdii kan soo laaba waa ugu dhib badan tahay af soomaali haddaan kula hadlaya maantana af soomaali kula hadli karaa wax ingiriis dhan ma soo gelin laakiin markii aad turjubaanaysid haddaa english kula hadla english caadi aan kula hadli karaa waxaa jira anyway raal noqdo waxaa jira dad oo haddii aan gafaya hadduu maraykan tegey wuxuu iska dhigaya americani iska dhigaya waxaa laga yaabla midda kaleeto another thing maanta waxaan aqsanaya maanta barkinta meesha oo waxaa kasoo kacday dadka badankooda waa ku dhibayaan wallahi in the comments waa maqla aratan af soomaaliga yaa u sheega yaa baraa waa dadaalaya I'm trying my best waa dadaalaya I'm giving my applause and see alhamdulillah may aan soo joogi iyo hadda meesha ahay alhamdulillah my brain alhamdulillah may okay anyways Mohammed let's go raal noqdo asxaab maanta ba aqaani ana iska xanaaqsan maanta bismillahir rahmanir rahim we actually should be happy today Manta one of the best podcasts why because we're talking about Ivy League Yale and you should be proud I'm so proud of you marka markino qofka adoo dadaalaysid Maryam dadaalka aan muujinaysid way xanuunjinaysaa marka run ahaantii marka lagu dhaho qoftan weyd af Soomaali mid qeyn fiiri like af Soomaaliga dhib waxay u soo marayso sidii waxaynu sida u dadaalayso iyo sida dadka qaarkood comment ugu soo qorayaan ma ka heli xaqiiqda kama heli arintaas but anyway thank you okay hey way let's go maxallaha so Mohammed I think waxaa fiican inaad toos hal mar u aqriyo because dad oo English readers ahaan oo xiran in the English readers waxay rabaan in hal mar straight ay u maqlaan the letter okay hey way and then markaas we'll go back and gawalgal mase waqtigaas qaadanaasaas okay hal mar wada akhri okay hal mar wada akhri okay to the faculty committee of the psychiatric mental health nurse I am writing to express my sincere interest in pursuing the Doctor of Nurse Practitioner in Mental Health program at Yale School of Nursing. Growing up in the Horn of Africa, in a small village town of Bardere, Somalia, I witnessed the unfortunate stigma surrounding mental health conditions, particularly autism spectrum disorder, ASD. This early experience deeply impacted me and has driven my passion to make a positive change in the field of mental health. In my childhood, I observed my cousin Fatima living and struggling with autism spectrum disorder. However, our community perceived such condition as curse, leading to prejudice and isolation. Fatima was kept indoors, away from social interaction, as her mother feared judgment and misunderstanding from others. Wow. This memory has stayed with me for many years, motivating me to pursue a career in nursing with a focus on mental health. Upon coming to the United States, I was admitted to Washtenaw Community College, WCC, in 2014, where I began my journey studying English as a second language, ESL.
Achieving admissions to WCC was a dream come true, and it marked the start of my career in nursing. Alongside my studies, I obtained a certified nurse assistant CNA license and worked as a patient care tech in the healthcare settings. These experiences solidified my passion for nursing and inspired me to further my education. With dedication and hard work, I graduated with an associate's degree in nursing from WCC in 2018 with a GPA of 3.9. MashaAllah. Subsequently, I transferred to Eastern Michigan University, EMU, for the BSN program, which I completed with a GPA of 4.0. MashaAllah. ما شاء الله مو كجرتي مكجرو أنا هويا ما شاء الله. He's really ما شاء الله. I'm so proud of you. And I'm jealous too. I'm not that smart. Muhammad is very smart. ما شاء الله. You're smart. Throughout my nursing studies, work, and clinical rotations, I have gained invaluable insight into the challenges faced in the healthcare profession, particularly in caring for individuals from diverse background. These experiences have motivated me to seek advanced education and training to make a greater impact in the field of mental health. 13 years have passed since Fatima's passing away, and although my community has evolved, the stigma surrounding the mental health and ASD still persists. I firmly believe that education, support, and advocacy are vital in addressing these issues both in the United States and globally. My aim is to contribute to this cause by becoming a psychiatric mental health nurse practitioner from Yale School of Nursing. I am confident that the PMHNP, which stands for Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner program at Yale, will equip me with the knowledge and expertise needed to address the new challenges in the field of mental health. With this advanced training, I intend to work, practice, and educate both within and beyond the United States. My ultimate goal is to return to that small village, Bardere, where I grew up, and make a difference by establishing a modern care infrastructure for individuals diagnosed with autism spectrum disorder, ASD, and promoting overall mental health awareness. I am deeply committed to this mission, and I believe that my journey from a small village in Somalia to pursuing advanced nursing education reflects my dedication and resilience. I am grateful for the opportunity to be considered for the PMHNP program at Yale School of Nursing and look forward to contributing positively to the field of psychiatric mental health. Thank you for your time and consideration. Sincerely, Mohammed Abdullahi Mohammed. You added Abdullahi. Mohammed like Mohammed. All right. Inshallah. Okay. That's good. I love this letter. Yeah. Inshallah. Okay. So let me أنا هرمنا ترجمة. هاي. سأنا وترجمة هيدا. هاي. Okay. warqadani waxay ku socotaa committee-ga ama dadka xukumo programka apply garanaya oo ah psychiatric mental health dadka badankeed xanuunsan oo maskaxda ka xanuunsan khaasatan warqadani waxaan u qorayaa sababtan u qorayaa waxay tahay waxaan rabaa inaan sheego rabitaankayga ama dareenkayga ku saabsan psychiatric mental health ama dadka mental health-ga ah oo aan ka apply garanayo jaamacadda Yale University khaasatan muxuu ahaa Yale School of Nursing. Growing up in Horn of Africa, koritaanka aan ku koray geeska Afrika khaasatan magaalo yar oo la yiraahdo Baardheere ee Soomaaliya ku taalo waxaan marqaati u ahaa
dhibaatooyinka ama waxyaalaha ku hareereysan mental healthga khaasatan cudurka yidhahdo autism spectrum disorder autismka cudurka la yidhahdo arrintaani dhibaatooyinkan dadka haystay ayaa waxay maskaxdayda ku reebtay ama ay maskaxdayda bedeshay ama waxay igu reebtay passion ama waxay igu reebtay dareen aan la soo koobi karin markii aan yaraa waxaa dariskayga ahaa ama waxaan fiirin jiray gabar la yidhaahdo faatuma waxay deganeed dariskeena ay ahayd faatuma looma ogoleen in ay banaanka kana waxaan sababtaan u sheegaya shekadan waxay tahay waxaa la yidhahdaa personal story waay soo maahan oo personal statementiga waxaa waa inaad adiga ka hadashid qaybtan waxaan uga hadlayaa maxaa sababta keenay maxay tahay inaan aniga aan barnaamijkan inaan mental health sababta ay keento waa maxay intaasoo kun oo qofaa soo qoraysa warqadaa noocaan camal qof walbay tababsabuu leeyahay aniga waxaa igu kalifay inaan barnaamijkan aan bilaabo ama aan sameeyo waxay tahay sidaan iyo sidaan walaalkaya sidaan eedadaya saa noqotay abtigaya saa noqotay anaa I suffer with mental health anay saameyn u yeelan so marka waa inaad ka hadashaa shakhsiyan caadi inaa oga hadashid waay marka adiga waxaa ka hadloosaa cousintaada ani cousinkayaan ka hadlaya markaan dabcan magaca waa bedelay faaduma la yidhaahdo so magaca waa bedelay because ma rabi inaa qofkan anonymous inaan ka dhignaa rabnaa qof la ogaanayo rabo qof inkastoo qof marra dhintay yahay marka muxuu ahaa gabadha aniga waxaa lagu waxaan jiray guriga looma ogolaan jirin banaanka u baxda looma ogolaan jirin guriga ayay ku jiri jirtay badankeeda dadka soomaalida annaga waa sameynaa sidaas waxaan sameynaa qofka markuu xanuunsan yahay guriga lagu hayaa dadka markay imaadaan muxuu ahaa dadaa imaanayaan qolka lagu soo xiri jiray qolka geeya waa dhibaysaa ama dadkii dhibaysaa ama saanu dhibayaan mental health ama down syndrome hayo dadka waa laga qariya qolka ku haya qofaa qolka ku haynaya dadka markay imaado dadka lama soo dhexgeliya badankeeda maxaa yeelay muxuu ahaa hooyadeedna waxay ka cabsanaysay judgment in la dhaho oo gabar xanuunsanay qabtaa marka waa la qarqarinaya ilaaha sii sax waxaan imaaday maraykanka waxaan imaaday markii aan maraykanka imaaday 2014 waxaan bilaabay Washington Community College la yiraahdo Washington la yiraahdo oo meeshana ku yaalo oo aan bilaabay inaan barto English second language oo ESL waa ingiriiska oo dadka luqadda aanan ku hadlin kan ay bartaan muxuu ahaa kaasi waxay ahayd riyo aan lahaa inaan bilaabo iskuulka inaan bilaabo riyo kaas laftirkeeda riyo ahaabo kadib waxaan helay CNA Certified Nursing Assistant aa la yidhahdaa waa dadka nursingka caawiyaan kaas ayaan helay kadibna waxaan ka shaqeeyey as a technician aan ka shaqeeyey oo maaragtay patient care technician oo dadka waxaa noqday blood pressure ka qaado dadka oo sokorta qad qaadaya ee waxyaalahaasaan ka mid noqday markana waxaan ka hadlaysaa waxaa soo martay qaybtaas sheekadii waaye qaybtan waxaan ka hadlayaa waa inaad tustaa qofka warqadan aqrinaa ama committeega dadka aqrinaa hal qof maaha dad badan waaye waa inaad tustaa sabab aan ku dooranaa 400 oo qofaa soo apply garaysay maxay tahay sababta adiga aan ku qaadanayno so marka waa inaad ka sheekaysaa waxa adiga aad gaartay ama aad achieve garaysay ama waxa aad soo samaysay inaad ka hadashid waaye waxaana samayn doona amaan waxa aad soo samaysay inaad ka hadashid waaye marka hoosaan kasoo bilaabaa leedahay soo maahan marka waxaan iri kadib waxa ii suurta gashay inaan Washington Community College waxaa waay markaa high schoolka dhamaysid meesha aadi kartid waaye dadka qaarkood jaamacad weyn aadaan kana jaamacad weyn maaha iskuul yar waaye marka waxay ii suurta gashay in aan helo 3.9 waxaa waaye ii sheeg gradeka waaye 4.0 waaye anaga xisaabnaa 3.9 runtii waa grade fiican waaye grade xun maaha kadib waxaan muxuu ahaa waxaan transfer ku sameeyey jaamacadda weyneed hadda aaday jaamacadda weyne oo aan helay 4.0 waxaa waaye
class walbeed oo aan qaatay oo jaamacadda weynka aan qaatay kulligood waxaan helay A plus like A if classka hadduu ugu sarreeyay A aan helay hadduu classka ugu sarreeyay A plus aan helay class walbeedaba kadib muddo badan kadib markii aan kasoo shaqeeyey research badan markaan sameeyey clinical rotationka markaan sameeyey waxaa runtii ii soo baxday waxaa runtii igu soo laabatay qisadii hadda kahor yaraanteyda wixii jiray ayaa dib igu soo laabtay memory igu soo laabteen 13 sano kadib faatuma hadda ku laabanayna hadda shakadii hore aan bilaabanay gabadhii xanuunsaneed ee ahayd banaanka aan loo ogoleyn ee guriga lagu hayn jiray aan la qarqarin jiray ayaa hadda shakada ku laabanaya faatuma 13 sano kadib ayaa ay ahayd markii ugu dambeysay 13 sano kahor ayay dhimatay faatuma laakiin hase ahaata faaduma maadaama ay dhimatay dhibaatooyinkii ay lagu hayay faaduma oo ahayd in macnihii ceebay noo soo jiidaysaa ama saanay noo soo jiidaysaa dhibaatooyinkaasi dhibaatooyin baxeen ma ahayn dhibaatooyin dhammaatay ma ahayn inkastoo ay communitygayga ay horumar ay sameeyaan dhinaca mental health olale oo qofkaani waa xanuunsan yahay qofkaani sidaani noqotay maskaxda laga hayaa haddadan inkastoo sidii ay hore aysan ahayn oo waagi horeet waxaa la dhihi jiray qofkani waa la cayumay ama hilibaa lagu dhejiyey ama kanaa lagu dhejiyey ama inkaar kaleetaa ka imaaday inkaarta iyo dhijiska iyo ma aragtay ishaba xaq waaye dhijis waxaa waaye qofaa wax cunaayo qofaa fiirinayo isha ku dhegeysa macnahe qofaa wax cunaayo hilibaa cunta camal qof maskiinaa ku hor cuntay marka hilibkii kugu dhegaayaa la dhahaa kugu dhegaa bismillah dhejisu kugu noqonayaa beerkaa lagaa qabanaya wax run miya oo exist ma aqaani wallahi run inay tahay beer waxay tahay laakiin ma marka waxyaalahaas inkastoo ay dadkii ay kasoo baxeen ay hadda aaminsan yihiin autism inuu jiro waxyaalahan kaleeta inay jiraan inkastoo ay aaminsan yihiin dadka badankooda ay qaarkood aaminsan yihiin weli waxaa jiro shaqo badan oo loo baahan yahay in la qabto autism spectrum disorder of Somali maxaa waaye it's for our viewers oo kasaynin of Somali autism le waay autism lama laha autistic qofka waaye autismka ma aqaani okay sidaas daraaddeed muxuu ahaa meeshaan waxaan ku leeyahay psychiatric mental health nurse practitioner waxay ii fududeynaysaa ama ay siinaysaa waxbarashada khibrad aan oola dagaalami karo ama aan ku caawin karo dadka xanuunsan meeshaan waxaan ka hadlayaa dareenka runtii aniga igu saabsan oo maaragta I'm deeply committed to this mission macnaha waxaa waaye gudahayga qalbigayga waa iga go-an tahay waxaa iga go-aan aan go-aan ku gaaray iga go-an tahay in aan caawiyo dadkaasi xanuunsan iyo inaan education u sameeyo dadkaasi iga go-an tahay marka kadib waxaan ku dhameeyey thank you for your time and consideration sincerely maxamed waa mahadsantihiin waqtigiina ay siiseen iyo maadaama aad fursad ii siiseen inaan ka qayb qaato macnaha inaan warqadayda aanba idiin soo diraba qalbigay kasoo gooday arrintan maxamed waayo dan intaas waayo so marka waxaan rabaa inaan kala dhigo qaybihii aan kala qaybiye ma khabariyay ku qaadatay asaga ina qortay oo muddo igu qaadatay waa qortay adigana waa iga caawisay maryam muddo ayada caawisay maryam wax weyn iga caawisay xaqiiqdii keligay fikradda iyo waxay iyo ma arkino iyo experiencega waxa adiga aan lahayd waa leedahay waxaada waayba laakiin qoritaanka oo u kala dhigay oo kala googooyay warqadan la qoray keliya runtii intaas hadda akhriseen waxaa ku jiro waa wax ma aragtay erey walbeeto iyo fikrad walbeeto iyo sida laiskugu aadinayay iyo maaragtay wax muddo qaatee waayo wax ma aragtay wax fudud ma aha mudday qaadatay muddo dheeray qaadatay so markii
af Soomaali aan ku galaynaa haddadaan si caadi khaas warqadda ahayd haddaa u baahantihiin insha allah facebookna laga soo xiriira insha allah pagekeena waa ka fikiraya insha allah haddii aad tusaale u qaadanaysid okay waay haddii aad warqadan like garaynaysid paste aa meel kale ku dhehaysid oo aad waxaynaysid kaas maya because ma fiicno waxayse u fiicneen kow warqadaani internetka ku jirtaa hadda school walbeeto wuu haystaa school walbeeto warqadeeda wuu haystaa maadaama hal apply garaysa hal system ay wada leeyihiin so waa la ogaanaa warqadan ani aan qoray school walba oo Maraykan ku yaalo way ogyihiin warqadan in aan qoray marka wax waa ka bedeli kartaa fikrad waa ka qaadan kartaa kaal adoo ku apply garaysan kartaa haddaa u baahan tahay and I'm happy with that haddii aaba heerkaas gaarto oo maana inaad apply garaynaysid ama garanaysaa nala soo xiriir waa kaa caawinanaa wixii aan kaa caawin kara laftarkeena xitaa insha allah hadduu ilaa yiraahdo marka so warqadda waxaan u qeybiyey kow waxaan ka hadlay backgroundkayga aniga intay ka imaaday baar dheer meel aan ku dhashay meesha kusoo waxay samay muxuu ahaa intaasaan kaga hadlay kadib waxaan u gudbay Maraykanka markaa gabadhiyan ka hadlay muxuu ahaa cousinkayga ahayd qaraabada aan ahayn maadarada aan ahayn dhibaatada ay soo martay iyo waxay community ka aaminsan yihiin mental health ay ka aaminsan yihiin aan kasoo hadlay dhibaatada ay jirto kadib waxaan u gudbay Maraykanka markaa imaanaya isku soo xijiyey Maraykanka markaa imaanaya aniga ahaan shaqsi ahaan wixii aan aniga aan ma aragtay shaqsi ahaan wixii aniga aan achieve gareeyay oo macnaha aan waxay 4.0 inaan helay 3.9 inaan helay GPA inuu sareeyay macnaha inaan dadaalayay oo waxaasoo dhan waxay caddaynaysaa iskuulkiina markaan imaado oo yeel ay ogolaatiin macnahii wax allaali waxa ii dhiibaysiin waa ka soo bixi karaa maxaa yeelay look at my record recordkayga fiiri asaga lama caddeehay inaa 4.0 askani also maxaa lahaa the transcript kan waa haystaan sax waay so waa isku fiiri hoyin okay asaga wixii ku qoran iyo transcriptka ma iswataa so marka laakiin meesha inaa adis gadid waaye intaas qof kuna waxay samaysaa dartartana lagu jiraa so inaa adis gadid waaye inaa ka hadashid waaye wixii adi aad ku guuleystay wixii adi aad samaysay waxaasan inaa ka hadashid waaye so marka convince garaysid waaye why on ku doorna adiga maxaad ka gedsan tahay those other students what unique talents what unique qualifications are hasata mee qof la qaata mataqaana programkeena laatani qof bes out of 400 yes 4 qof bes 400 apply gareeyeen 20 qof la qaatay 20 qof laatani qof laga qaatay you're lucky okay لكن haddana waxaan sameeyay kadib qaybta kaleeto oo ahayd qaybtaas kaasi ahayd markii aan ka hadlay waxbarashada meesha aan soo sameeyey waxaan soo waxay oo kan waxay caddaynaysaa oo aniga waa awoodaa inaan wax allaali waxa ii dhiibtaan inaan kasoo bixi karo oo programka hadhowda dhexda aan ku dhaafaynin waa awooda aan committed kadib waxaan ku laabtay sheekadii kadib hog aan soo sameeyey sooma ahayn waa soo bilaabay xiriirtan ku sooma ahayn yaa now sheekada inaan dhamaystiri waayo so gabadhii sheekada meesha ku dambeysay markii gabadhii sheekada meesha ku dambeysay gabadhii waa dhimatay allah raxma laakiin goolkeygii ahaa inaan ka waxay ismay bedelin maxaa yeelay communitygayga inkasta uu kasoo fiicnaada meesha ay joogeen weli dadka xanuunsan oo maskaxda ka xanuunsan yihiin dhibaatooyin badanaa jiraan ay face gareynaa oo rabno inaan ka ijid gareen oo ka educate gareen oo ka caawino ay u baahan community bis kaliya ma ahan also mid haddana waa kusii daro Maryam markii dhaysa haddaa akhrinaysa warqadda markii akhrinaysa waxaan ku dhahay waxaan rabaa inaan caawiyo dadka inta joogo kaliya ma ahan dadka inta joogo oo Maraykanka joogo iyo kuwii xagga iyo dib inaan u laabto oo kuwa xaggaasna aan caawiyo dadkaygana aan caawiyo dadka Maraykanka jooga caawiyo because aniga Somali American aan soo maha so marka haddaa dhahdid oo markii aan wax barto oo waxbarashadii aan dhameeyo waa baxaya Soomaaliya u laabanaya Soomaaliya dadkaygan soo caawinaya why do we maxaan ku khasaarahaynaa waa macnihiis yes because meeshaan hadda aan joogno mental healthiga dadka waxaa la dhahay 200 oo qof oo xanuunsanbo hal qofaa hal dhakhtaraa u joogo bas 200 qof ma ahayd ma aqaani ma aqaani waxay ahayd
maybe 200 qof ma ahayn no waa ka badneed so waa maalmo baytaan ku aragnaa aniga hadda isbitaal ka shaqeeyo ER ka ma arkino emergency room ka ma garanaysaa emergency departmentiga waxaa joogaan dad badan oo mental health dadka isbitaalada ka shaqeeyaan yaqaana dad badanaa meesha lagu hayaa maxaa yeele looma hayo placement meel la geey looma hayo macnihii dhakhtarka arki lahaa iyo wixii kaleeto badankeed waa dhibaato waay dad yariis le mental health sameeyaan ya so marka waa inaad dhahdid intana wax waa ka sameynayaa halkaasna wax waa ka sameynayaa dadkaasna waa caawinayaa saa u haysta kadibna waxaa dhaa waa ku mahadsantahay waqtiga aana siiseen please ina adeeryaalo ii ogolaada meeshaan ina adeerkii hadduu haysan lahaa meesha waa lii ogolaan layaa dalaq aan noqon layaa so meesha ma la yaqaana laakiin adeer waa jiraan in adeerin ma jiraan kudhe xogaa waa jiraan connection waa jiraan laakiin ma ahan in adeero ma aha waxaad inaa wax la imaado waa marka hore So can I talk about the stigma that you mentioned the stigma oo Somali haysto waxa waaye haddii qof jiran haysto waa la kharkharihaa ceeb waaye ilaahay aku sii cunugan oo jiradan haysto maxaa ceeb ka dhigi can you help me understand that wallahi wax horta wax oo shameful waa wax ma aragtay oo murugo leh waaye waxa ma aragtay muxuu ahaa laga xishoodo waaye ilaahaa ku siiyey cunug xanuunsan ilaah hadduu ku siiyey dad badan oo ilmo xanuunsana waa jiraan inaa qarqarisid ma ahan inaa waxaysid ma ahan cunuga inaa dadka badankood qaarkood xitaa denial ay ku jiraan waa diidayaan oo macnihii oo cunugayga ma xanuunsano cunugayga saan ma aha sidaan ma ahan wax lagu macnihii denial ayagoo cunugooda heli karaan inay caawiyaan oo ay wax u sameeyaan oo waxayaan magaranaysaa maysaan waaye kan waaye waa la sameynaa kan waaye macnihii kana la waxaynaya macnihii cunug xanuunsanaa dhashay in la dhaho sababtana waxay tahay runtii haddaan isku dayo inaan ka jawaab su-aashaada sababta waxay tahay annaga ahaan qof xanuunsan markii aan aragno waxaan dhahnaa qofkaasi sababaa jirta cunug uga xanuunsan yahay so waalidkii marka wuu cabsanayaaba waalidkii marka wuu dhuumanayaaba wuxuu ka dhuumanayaa wuxuu cunug la qarinayaa haddii la dhaho cunugaada waa xanuunsan yahay ayadii kusoo laabanaysa xale oo adaa ama dadaa halaysay ama dadaa caysay ama dad kaleeta aad wax xun ka sheegtay oo dulmisay ama muxuu ahaa inkaara qabtaa so marka adig kaa soo baxday wixii cunugaadii ka soo baxday wixii adig kugu socday so that's why ayaga laftigooda cunuga ma ahan waxa ay qarinayaan cunuga ma ahee ayaga reputationkooda ma aragtay waxaynu yihin sidaas daraadeed cunugii u cadaabayaan marka cunugaa la waxaynayaa Is this real? Yeah, it is real hadda dadka badankood haddaan starting comfortable hadda noqonoyin dadku waxay baranoyin dadka maasha allah waa kasoo fiicnaanoyin dadkii daaweyni raadsanoyin laakiin waqti waxaa jirta ma aragtay ilmaha ma aragtay ii sheeg si xun loo waxayn jiray adduunkan waxay nooga fiican dibadahan waxay nooga fiican waxay tahay ilmahaas xanuunsan ma arkino sidii ula tacadilayaan awareness la siinaya sidii olo waxay iskuulka xitaa one la sameynaya iskuulka macalima haddii ay noqotaa la xitaa fiiri maasha allah ilaahay ma arka ilaahay dadkan soo hanuuniyo one la siinayaa macalimo dhan waxaa loo siinayaa intaasoo $1,000 la siinayaa social worker kulli waa u safan yihiin sidii cunugaasi wax loogu waxayn lahaa Not only that, she has to get a specific degree to teach cunugas. So hadda I'm in education, right? Yeah. There's in education there's a special education endorsement yalbadna kala jira waxaa baxas kartaa special education hadan waa it's more ay ku silba baxayaan emotional impairment ajira sign language ajira ilmaha dhagoolaha and maxallaha ilmaha on the spectrum autism spectrum disorder all of these they have their own endorsement marka education degree markii heshid endorsement kaada baxsaysaa hadana another certificate waay oo
ku train gareehayo cunugaas oo jiradaas qabo macnaha waxbarashadiisa si uu bari kartid. Does that make sense? Yes, yeah. Like they dedicate the teacher to just cunugaanle ay soo baratii si wax loo baraayo, because cunuga spectrumka ah iyo cunuga dhagoolaha ah, they're not the same wax ma la baro. The teacher or education hasatam, she doesn't know, so she has to have a specific training. So subhanallah, the country, the privilege ay haystaan meel walba ay ka fikirayaan. insha Allah anigana waa gaari doona dulaa, laakiin waxaa awareness inaan sameyno, inaan ma arkino qofka xanuunsan ama qofka loo haysan. Soomaalida anaga qofka kaliya u naxariistaan mataqaanaa waa dadka ama ila ama jiis ama bahalkii qof xanuunsan hadii la waayo. dad badankood Soomaalida badankood dad badan waxaa jiraan runtii maskaxiyan xanuunsan oo iska socdaan xalaftirkooda xitaa oo aan waxba laga waxayn maxaa yeelay stigma waxay ka cabsanayaan mataqaanaa, oo dad badan oo og inay xanuunsan yihiin jiraan oo way og yihiin inay maskaxiyan xanuunsan oo kaniiniyar wax yariis kaniiniyar daaweyn karo, wax yariis kala tuuri karo. laakiin dhibaatada jirta waxay tahay muxuu ahaa ma sameynayaan, macnaheedu haddii ay sameeyaan waa lagu quslaa ama waa lagu waxaysmayaa ama waxaa leeyahay hebel kan waa wallahi hebel maalin mar buu aada bahalkii ninka kuwadaya kusii sheega dadka kusii sheega ama naagta kuwadaysa kusii sheega hebel adoo xanuunsan waa xanuunsan hebel ilaahay, macnaheedu adig dhan waxaa laga dhigaya wax kaleeta laga dhigaya, waxaana chemical waa oo dadka ku dhacaan oo maskaxiyan waxay ismi kareen awooga jiinu noqon karaa, waxaa ka imaan kara, waxaa isbedeli karaan ma fahmino. so marka insha allahu tacaala shaqo badanaa noo taalo and I runtii am daacadiga tahay markaan dhahay intaasoo sano inaan aado. I have a passion for it, you know. Inshallah. Yes, I have a question for you. So Alaku Haya. This is a little bit Somali waa ka baxayna ardayda ulaabihina ardayda maxaa lahaa dadka dhalinyarada oo hadda imaanooyin America ku cusub ama kuwa hadda Mexico kasoo galooyin, wax advice maxaa u haysaa? waana camalaha advice, yes, in terms of starting a career, like kan waxaan ku dhahaa because dhalinyaro badan like dhalinyarada mainly waxaan dhawayaa from 18 to 28 years old aan ka wadaa da'daas inta u dhexeeyo oo badan America imaahayaan oo cusub isla markii waxay ku boodayaan truck driving. So ani in my opinion truck driving wax ceeb ma laha, shaqo waaye waa fiican yahay, but a 50-year-old nin oo 50 sano ku jiro oo truck fuulo iyo wiil oo dhalinyaro oo 24 sano ku jiro isku khalmaayaan. kan 50-year-old ku khalmaa because other opportunities maba u furnaba by laakin kan 24-year-old ka opportunity I sheegtay like so many options as leeyahay by laakin waxaas decide garaha truck in iskoro kaas camal maxaa advice kala lahayd? wallahi horta dadka markay imaadaan dad badan oo sax saa sheegto waaye, dad badan Mexico hadda kasoo galeen muxuu ahaa waqtigooda inay ka faa'iidaystaan muhiim waaye. 5 sano ugu horeyso Mareykanka aad joogtid muhiim waaye noloshaada oo macnii inkaas ugu muhiimsan noloshaada 5 sano ugu horeyso. 5 sano ugu horeyso haddaa ka faa'iidaysan weligaa kama faa'iidaysanaysid. number kaas muhiim waaye. dadka dhowr qeyb u kala baxaan. dad qaarkood dadka Mexico kasoo galayaan waa dad maaragtay waaweyn waa saa sheegtay, hadda kadib iskuul kuma laaban karaan ama ilmi kasoo tageen ama hooyo kasoo tageen ama dadka jasan kasoo tageen, marka dadkaas camal inay shaqeeyaan oo ku qasban yihiin. laakiin dhalinyarada ka yar 28 oo haddadaan intay imaadaan xamaali noqonayaan, aniga ahaan waxaan dhihi lahaa waxaa ka fikirtaa hadda ha ka fikirin muddo dheer ka fikira, waxaa ka fikirtaa 10 sano 20 sano 30 saneeto 20 sano 10 sano kadib dibaad soo fiirin doontaa haddii hadda xamaalinima aa ku bilowdid. waa iska fududaa aad u fududaa haddadaan inaa xamaali aa noqotid.
aad u fowda aniga waxaa ka wadaa inaad lacag markii aad ma aragtay aad meel kale ka shaqaynaysa ama taraaga koraysa ama waxa koraysid lacagaa ku imaanaysa waa baashaalaysaa waxa lagu waxaynaya laakiin markii aad 20 sano hadda kadib taraag ma sii kori kartid haddii kaleeto adoo ma aragtay wadnaha mandhiciraha ku qabsameen qabsin kugu dhacay dhiikar kugu dhacay sukrow kugu dhacay lagaa soo dejinaya meeshaas taraagna ma aragtay dad fara badan yar waxaan aqaanaa saaxiibkaya caqliga uu leeyahay aadan inaba aamini karinbu waxaan leeyahay qofkaas waaba iga caqli badan yahay baani aan aaminsanahay baani aad u iga caqli badan yahay waxaan markuu u imaanaya waxaan ku dhahay niyahow nin caqli badan baa tahay ku jeedaa nin dhalinyaraa tahay waxaan dhahay wuxuu dhahay ila taliyo dhahay waxaan dhahay nin dhalinyaraa tahay nin caqli badanaa tahay nin firfircoonaa tahay isku da-aanaa ninka yarka niyo waxaan dhahay waxaad samaysaa iskuul aad 5 sano gudahooda yaa 5 sano gudahooda noloshaada adiga noloshaada iska dhaaf nolosha xaaskaada ilmahaada iska dhaaf nolosha ilmaha awowga u lahaan lahayd awowga u noqon lahayd yaa bedelaysaa maxaa yeelay hadda markii adiga iskuul aadid cunugaada doorasho ma lahan inuu doorasho ma yeelan karo ilaa ma inuu iskuul aado he has no options iskuul laazim inuu aado marka adi jaamacad hadda kasoo waxaysid hadda aniga cunugayga inuu macnaha ilaaha og waxay noqon doontaa sheekh ma dhalan waa la yidhahdaa soomaalida qof sheekh ah inuu sheekh dhalina waa laga yaabaa sheekh shaytaan inuu dhalina waa laga yaabaa shaytaan sheekh dhalina waa la arkay labada waa la arkay laakiin hase ahaatee markii aad kasoo baxday family wax bartay markaa kasoo baxay magaranaysaa you have high expectations adigana inaad wax baratid waa chanceskaada aad buu u sarreeyaa one of the reasons ani haddaan iskuulkan markaan imaad iskuul aan galay waxay maxaa yeelay familkayga famil ani wax bartay aan kasoo jeedaa so sidaas daraaddeed waaba waajib camal waaye inaad wax baratid waa waajib camal waaye marka aniga ahaan waxaan dhihi lahaa marka dadkaas waxay kala baxaan dad biil laga sugaya dadka biilka laga sugaya dadkaas waa biil laga sugaya kulligood qof walbana biilaa laga sugaya xaqiiqdii marka laga hadlo qof meesha soomaalida oo dhanba dad qof walbeeto waxbaa laga sugaya laakiin aniga ahaan waxaan kula talin lahaa waqtiga wadankan suu u ordaya waa ogtahay Maryam dadka dhan waa ogyihiin so let's just use a scenario adiga 24 jirka oo hadda imaaday hooyadiis for example xamar isku soo tagi and as soon as cunugeeda oo maqasho Mareykankaas imaaday she demands lacag waxa bill mail isar ama walaashaada bill mail usar markuu already cunugii job pressure al saari how would you maxaa ka dhihi like how would you help that person waxaa ka dhihi lahayd mataqaanaa horta hooyo markii ay ku dhahdo waxaan rabaa mayka ma dhihi kartid laakiin waxaa samayn kartaa waxay tahay hooyo waxaa dhihi kartaa hooyo aniga waxbarashaan aadayaa aniga markaa mustaqbal markaa meel ani gaaro adigoo gaartay la mid tahay magacaadan kor inaan u qaada aan rabaa horumar fiican inaan ku gaarsiyaa laga yaabaa bil walbeeta inaan $300 kuu soo diro inaan iskuul aanan aadin oo bil walbeeta $400 $500 aan kusoo diro iyo inaan bil walbeeta $200 kuusoo diro oo hadhowdiina aad gadaal ka raaxaysatid oo gadaal aad ka raaxaysato oo sanad walbeeta aad aadid cumro aa aadid sanad walba aad xajka aadid hadhowdi inaad saas ka noqotid iyo in $400 ama $500 bil walbeeta aan kusoo diro oo weligaana aadan macnihii $500 $400 waxba ma kartid Soomaaliya laakiin ila intees sacaha halkaas maybe shaqadaas permanent shaqo oo waxa waaye maybe si sheegti you could get fired so you could get sick marka waxaad dhihi kartaa hooye $200 waa awoodi kartaa nafsadaada inaad ka taxadirto noloshaada inaad maaraysid $200 hooyada u dirtidna waxa kolley waa qof walbaa samayn karo dhibaato ma noqon karto adigana aad macnihii aad bariis iyo macnihii bariis ku dhinahay muxuu ahaa cambuul aa cuntid ma garanaysaa iyo rootis maris aa cuntid iskuulkaada aa ku dadaashid 3 sano kadib 4 sano kadib 5 sano kadib jaamici aa tahay jaamici waxaa tahay cabdulqaadir mashaabi maxamed cabdullaahi cabdiraxmaan maxamuud
cabdulle aad tahay nin waxaa tahay markaasi kadib qalinkaada iyo bugaada ku shaqaysanaysaa gurigaada inta aadaysaa ama gurigaa ka shaqaynaysaa computer haddaa ku shaqaysid gurigaa ka shaqaynaysaa ka waxaysanaysaa noloshaada ilmahaada ag joogaysaa waxaa aadaysaa xajka adoo joogtaad aad maaragtay aad waxaynaysaa marka waa inaad vision leedahay waa inaad meel dheer ka fikirtaa so macnaha waxaa dhahoosa hadda still adoo iskool ku jirtid hooyadaa lamadad boqol waa awoodaa adigana noloshaada inta biilashaadana waa subs kartaa maxaa lahaa it's doable yes iskuulka marka ugu horeyso iskuulka aad aadaysid muxuu ahaa iskuulka dhan la aadaba 4 beriyaa la aadaa iskuulka so what type of job ku advice karaa lahayd haddii arday leeyahay 4 beriyaa iskuulka la aadaa okay 4 beriyaa dadka badankood iskuulka aadaan waa Isniin Talaado Arbaco iyo Khamiis 4taas beri 2 saac 4 saacadood class lagu jiraa 4 saacadood 8 saacna akhrisaa u baahan tahay marka muxuu ahaa 4taas beri 4 beri kaliya hadda iskuul aadid marka iskuul ka soo baxdid akhris u fadhiisatid wax kaleeta aadan sameynin 3 beri ka hor Jimco iyo Sabti iyo Axad Uber ama Lyft ama waxyaalahaas aawodid markii aad damin kartid markii aad daari kartid oo laga iska soo xaadir inta lagu dheheenin 3 beri aawodid 3 beri hadaa wadid Minnesota ama part time job Minnesota hadaa joogto 3 beri labada 3 beri laga shaqeysta waaba Jimco iyo Khamiis iyo Axad waaya 3 beri laga shaqeysta waa 3 beri hadaa shaqeysatid kunkaada adiga $700 isbuuci waa samayn kartaa ugu yaraan $700 samayn kartaa 3 beri marka patient care ay soo bikaraan $700 hadda aad samaysid waa 2,800 Soomaa bishii saas ma 2,800 2,000 adi qarashkaada waaye 200 ama 300 hooyadaa u dir qarashaas u baahan Soomaa in loo waxay Soomaa inta kale tan meel dhigo meel yidis dhigo because maxaa yeelay 200 ama 300 ku soo hartayna meel dhigo si hadhowdii haddii wax kugu dhacaan ama haddii dhib kugu dhacaan ama hadaa buug u baahatid hadaa wax kale u baahatid emergency funds u waxaysatid 200 300 hadaa bishii meel dhigatid ka badan wax badan inaad save gareysatid oo ama guri aad gadatid haddaa tagtid guri Soomaaliya ka gadanayo taraagan fuulaya inaad dhahdo maaha waxaa waaye long term inaad ka fikirtid waay long term inaad ka fikirta xaqiiqdii marka intaas ku tarin lahaa